بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa salaamaya dhammaan ardayda macadka Ibnu Maalik iyo staadkeena qiimaha badan. waxaa soo gudbinayaa maanta sharaxa jamcu taksiir. jamcu taksiir wuxuu u kala baxaa munsarif iyo maa laa yansarif. xaalatu rafca markuu joogo labadiisa noocba waxaa lagu wadaa dama asal ah. tacriifuhu jamcu taksiir tacriifkiisa huwa isagu ما أي الذي متك ويدل كتسية على أكثر وحك بدن من اثنين لا والله أو اثنتين أما لبددك وتغير فيه دحدثا وإسكو بدله بناء مفرده مفرد كيسة قاب اسميت كيسة أي صورة مفرده ولولا جيدا نحو سذا سبب بوها سبب أسباب بنغض سببه ومركور واحد بدل الشكل وسين كانوا هري فتحة سارين saarneed hadeerna waxaa saaran sukuun sidoo kale siyaada dhacday wahamsadaan u horeysay iyo alifkan bacda ku taagan baa soo biiray rasuulun buu ahaa rasuulun buu noqday. waxaa dhacay markii hore shakligii baa isbedelay oo shaqalka oo ra'dan ugu horeysa fatxa saarneed hadeerna damma saaran sidoo kale naqsi baa dhacay oo waawgan baa la jaray. tusaalaheena kala dilflun buu ahaa cunug adfaalin buu noqday caruur. diflun xarafkan u horeeyo kasra saaran hadeerna sukuun baa saaran sidoo kale waxaa dhacay siyaada dhacday wahamsadaan u horeysa soo biirtay iyo alifkan fa'da ku taagay. isbedelka ku dhacaya mufradkiisa qaab dhismeedkiisa waxa loo qeybiyaa 6. midka hore waxa waaye shakliga inuu isbedelo oo shaqalkii ah. tusaalaheena asadun buu ahaa usdun buu noqday. asadun aan dhahay libaax usdun libaaxiyo. hamsadan waxaa saarneed markii hore fatxa saarneed hadeerna waxaa saaran damo sidoo kale siinkaana waxaa saarnaa fatxa hadeerna waxaa saaran sukuun. tusaalaheena labaad waa inuu naqsi ku dhaco oo waxay ahayd tuhammatun tuham bay noqotay oo taadan u dambeysa baa la jaray. tusaalaheena kale waxaa way siyaado inay dhacdo waxay ahayd sinwin buu ahaa laan sinwaanun buu noqday laamo oo waxaa soo kordhay alifkan iyo nuunta u dambeysa. tusaalaheena kale waa inuu shakliga isbedelo maca siyaada iyo siyaada lala qabo. sababun buu ahaa asbaabun buu noqday. sababun sabab asbaabun sababo. sababun siinkan u horeeya fatxa saarneed hadeerna sukuun baa saaran sidoo kale siyaada dhacday oo hamsadan u horeeya iyo alifkan ba'da ku taagan baa soo kordhay. tusaalaheena kale waa inuu shakliga isbedelo oo shaqalka maca naqsin nusqaan iyadoo lala qabo. kitaabun buu ahaa kitaab kutubun buu noqday kutubun. kitaabun buu ahaa oo xarafkan u horeeya kasra saarneed kana damo sidoo kale naqsi baa dhacay oo alifkan baa la jaray kutubun buu noqday kitaabo. tusaalaheena u dambeeya waa inuu shakliga isbedelo مع سيادة ونقص يلا لقب سيادة ينسخا منبا أمير بوها أمراء بنغضي. أمير بوها أو همسدا نهر سوحا سارنيد فتحة هذا وحا سارن ضمه سيدوك النقص بعد عي ويأذن بعد لجري سيدوك واحد على سيادة أو وحا سوكر دي ألف كان يهمسدا نضم بيسا. تساله هنا جمع التكسير حالة الرفع مركو جوغو في الضمة الظاهرة وحا قام الرجال قام وحا استاغ الرجال رقي. قام وفعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الرجال وفاعل قام مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ما لا ينصرف مركو يهي في الضمة المقدرة وحدر الجرحى حضر وحسوا حاضري الجرحى كوي داوعنا. حضر وفعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جرحى وفاعل حضر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. مثال جمع التكسير في حالة النصب مثاله في الفتحة الظاهرة نحو قرأت الكتب. قرأت وحن أخريي الكتب كتاب ذا. إعرابه إعراب سنة قرأت فعل وفاعل الكتب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. مثاله في الفتحة المقدرة
markay fadxada ku qadaran tahay oo waliba ma la yansarifu yahayna waxa way ra'aytu sukara. ra'aytu waxa arkay sukara kuwii sakhraansanaa. رأيت فعل وفاعل سكارى ومفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. مثال جمع التكسير منصرف في حالة جر. إن جمع التكسير منصرف مركو حالة جر جوغا وحلقوه صديا كسر أسلة سيدا مررت بالرجال. مررت وحن سومري بالرجال رقي. مررت فعل وفاعل بالرجال الباء حرف جر. الرجال مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلق بمررت. والله أعلم. لغة البيان ومنطق القرآن وفرادة فيها وسحر لساني.